Hello everyone, kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan rabaa in la wadaago busketi sida loo sameeyo. Busketiga waxaa waaye steak oo si khafiif ah loo soo jarjaray. Marka waxaan rabaa in la wadaago sida uu sameynayo asagii qudaartan. Haddaad jeceshahay inaad baratid sida hilibka geela loo sameeyo, sidan ama kan kaleba ila soco insha Allah. Maanta baranaysa and videoga dhameysa daawasho wacan. Halkan waxaan ku haystaa nus kiilo hilib geela oo si khafiif ah loo soo jarjaray. Marka hilibka haddaad rabtid inaad jilcisatid ama jilac uu ku noqdo, waxaa jiro siyaabo badan oo samaysan kartid. Laakiin anigu maanta waxaan sameynayaa caano lo hal koob baan hilibka ku dhex ridayaa. Caanaha lo'da hilibka wuu jilciyaa. Haddaa ku haysid 10 daqiiqo ka badan, hilibka wuu ka adkaanaa. Marka saacadda timerka lagu xirtaa 10 daqiiqo kadib hilibka caanaha waa ka dhex saaraysaa. Hilibka marka caanaha si fiican u dhex geliyo, dhinac baan dhigayaa 10 daqiiqo inta ka dhamaanayso. Hadeerna waxaan sameynayaa spiceskan si diyaarsanaya. Spiceskan isticmaalaya waxaa ka mid ah 1 qaado xawaash ah, chicken masala 1 qaado, meat masala 1 qaado, paprika 1 qaado, steak seasoning 1 qaado, iyo 1 qaado olive oil ah. Cusbo kuma daraayo because steak seasoning-ka iyo meat masala-ga waxay leeyihiin cusbo. Marka haddaan cusbo kale ku sii daro dhanaan buu iga noqonayaa. Cuntada side-ka u dhanaana ma fiicna, lamana cuni karo. Marka that's why aan ugu dareynin cusbo. Spiceska iyo saliidda dhan markaan isku daro, xoogaa spiceska markaan qaso wuu adag yahay wax yar. Marka waxaan sameynayaa 2 qaado yar ah oo biyaan ku darsanaya si uu khafiif iigu noqdo. Markaasna aan hilibka ugu dhex darsado. Si fiican baa u qasayaa si biyaha iyo spiceska iyo saliidda kulli isu dhex galaan. Markaasna spiceska dhinacaan dhigana qudaartiiba hadan soo jarjaranaya. Qudaar noocan rabta isticmaali kartaa. Anigu waxaan isticmaalayaa maanta 1 xabo kaarot ah aan soo xoqay. Waxaan kaloo isticmaalayaa 3 nooc barbarooni iyo 1 xabo basal cad. Baradho xataa ku darsan kartaa haddaad rabtid. All kinds of qudaar ku darsan kartaa. Marka waxaad jeceshahay oo ku darsan kartaa. Intaan aan isticmaalayaa maanta intaasaan ku darsanayaa hilibka. 10 daqiiqo kadib hilibkii waa kana diyaar waaye. Marka waxaan hadda sameynayaa caanaha ma isticmaalay. Hadda hilibka dhana caanaha ka saaraya. Wax yar baa hilibka saa u raxaya si caanaha dhan ay uga daataan. Markaasna baaquli kale hilibka ku wareejinaya oo nadiif ah. Hilibkii waa kana caanihii dhan aan ka soo raxay. Haddana waxaan sameynayaa spiceskii markii aan diyaarsaday baan ku darsanayaa. Si fiican baan ugu massage gareynayaa si uu hilibka dhan u wada gaaro. Digsi baan dabka saartay. Waxaan ku darayaa 1/2 qaado oo olive oil ah iyo waxaan kaloo ku darayaa qaado 1/2 keeg oo butter ah. Markaasna waxaan sugayaa wax yar inay kululaadaan. Hilibkan wuxuu ku fiican yahay uma baahna in saliid badan lagu kariyo. Dhaqsoona bislaanaya waqti badan in la kariyo uma baahna. Marka saliidda badan waa wada ognahay inay caafimaadkeena u fiicnaan. Marka saliidda hal iska ilaaliyo. Hilibkan dhaqso bislaanaya. Marka that's why saliid badan ugu baahnaan. Ani cuntadeeda saliid kuma jecli. Saliidda waxaan jeclahay inaan ku yareeyo iyo cusbadaba. Waxaan sameynayaa hadda hilibkii aan saaraa birta iyo kululaatay. Marka hilibkan uma baahna waqti badan in la kariyo sidaan markii horeba sheegay. Wuxuu u baahan yahay in wax yar la kariyo because haddaad dabka waqti badan ku haysid uu ka sii adkaanaya. Marka waxaan sameynayaa dhinac walba 2 daqiiqo baan karinayaa. Dabka waxaynaan ugu haynin hilibkan uu jilicsan yahay. Haddii dabka lagu sii haayana waa adkaanaya. Marka haddana waa diyaar waan ka qaadayaa. Markaas labada dhinac brown ii noqday haddana waan ka qaadayaa.
mid kalan saaraya marka waa in tusaya sidoo noqdo markaan dhameeyo kulli saas aan wada karinaa hilibka intaan diyaarsado dhan ilaa uu dhamaado markaasna waxaan tusaya sidaan qudaarta u diyaarinayo digsi nadiif aan soo qaadanaya waxaan sameynayaa wax yar oo olive oil aan ku daadinaya markaasna waan ku tirtirayaa waxaan ku shubayaa oo kale qudaartii aan soo diyaarsaday qudaarta uma baahna in saliid ayadana aan ku kariyo digsigan baan saliidaas ku tirtirayaa marka qudaarta markaan ku shubo digsiga waan daboolayaa wax yar markay huurto ayadaa bislaanayso huurkaas bisaan rabaa inay ku bislaato wax kale biyo iyo waxa kuma diraa ayadaa biyo dhalayso qudaarta daboolkii aan ka qaaday sidaan rabay laakiin weli ma ii noqonin marka wax yar baan misna daboolaya 2 daqiiqo kaleeto markaasaan sugayaa inay sidaan rabay ay ii noqoto laba daqiiqo kadib waa taas qudaartii waan ka qaaday daboolka marka way ii bislaatay ma rabo intaas ka badan inaan dabka ku sii haayo haddana waxaan ku darayaa kabsar caleen iyo toon aan isku soo tumay markaasna xoogaa yar baan dabka u deenaya si kabsar caleenta iyo toonta ay u gasho qudaarta markaasna waxaan sameynayaa hilibkii baan ku dhex darsanaynaa remember hadaa waa aniga dhahay cusbo kuma darayo hilibka because spices ka qaar aan ku darsanayay baa cusbo lahaa hadda laakiin qudaarta waxaan ku darsanayaa cusbo yar waxaan sameynayaa hilibkii aan markii hore diyaariyay ayaan korka ka saarayaa hilibka markaan ku daro waxaasaan ku daraayo kale waa dacaankii hilibka maxaa la dhahaa ka haray marka kor kale uga daadinaa si aan marabina iska daadiyo marka kaasna waa ku daraya sidaasaa lagu cuni karaa ama waxaa jeceshaha ku cuni kartaa oo ku sabgareyn kartaa tan kaleeto hilibkan aad ayuu u jilicsan yahay uma baahna inaan misna dabka kusii celiyo ama dab kale aan sii saaro marka sidaasaan ku daynaya hal mar aan kulli mix gareyna and then waa ka dejinaya that's it it's ready saas aa arkaysaan ayuu u jilicsan yahay it's really beautiful haddaadan garanaynin ama uu kugu adkaa inaa hilib geel samaysid ama uu ka adkaan jiray mar walba marka istiraadid samee this is the chance for you waa sameyn kartaa isagoo waliba jilicsan oo qof walba cuni karo caruurta dadka waaweyn marka this is it maanta videogeeni intaasuu nooga egyahay aad ayaa u mahadsantihiin channelkayga sidaa uga xiran tihiin ha ilaawina inaad videoga like saartaan commentina noo dhaaftaan insha allah waxaan isku arki doonaa videoga xiga aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum